taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa warbaahinta soo bandhigay khamri tiro badan oo lagu soo qabtay meherad ganacsi oo ku taala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa kadib howlgalla ciidamada booliska Soomaaliland ay ka fuliyeen caasimadda Hargeysa sida uu sheegay warbaahinta afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Xiis oo faahfaahin ka bixiyay khamrigan iyo meherad lagu soo qabtay iyo xaaladaha cusub ee adeegsanayaan shakhsiyaadka soo galiya maandooriyaha Soomaaliland iyo sida ciidamada booliska Soomaaliland ugu daba jiraan falanka caynkaasi oo kala بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle waxaan halkan isku nimid inaan ummadda soo bandhigno ciidanka booliska Soomaaliland sida ay wax u qabanayaan soo shaqeynayaan waxay xalay howlgalla aad ballaaran ku soo qabteen khamrigan hortiin yaala waxayna ciidanka boolisku ka soo qabteen ra'iislaha Soomaaliland bis ee ku Jigjigeer ku yaala waxa loo soo qabtay 5 sano oo ka ganacsanaya khamrigaasi noocyo cusub ay ku iibinayeen waa aragteen khamriga halkan buu yaala sharabaadkaas la soo hoosgelinaya khamriga dabatana qofka waa laga iibinayaa oo waxa looga dhigayaa in qofka saliid laga iibinayo moogti sharabaadkiina waxa ku dhex jira khamrad xeeladaha cusub ee ay isticmaalayaan ee sanaasho waxay keeneen qaabkaaste inay dadka khamriga intay soo qaadaan sigiska dhex geliyaan dabatana qofka riiska soo geliya in baa laga iibinayaa waana mukhadaraad wadinka arkaya ciidanka booliisku way ka horeeyaan iyagoo ka faa'iideysanaya aqoontooda iyagoo ka faa'iideysanaya tababarada oo had iyo jeer u qabto taliya ciidanka booliisku oo aad iyo aad ugu mahadsan yahay oo maanta aqoontooda ciidanka booliiska runtii ay kuwa ka sii horeeya ay tahay ra'iislaha Jigjigeer ku yaala ayaa laga soo qabtay waxa uu intaas ku daray in dhammaanba gobolada Soomaaliland ciidamada boolisku ay ka fuliyeen howlgalla caynkan oo kala lagu bartilmaameysanayo maandooriyaha ciidanka booliisku ma aha kaliya kaliya mukhadaraadka soo qabtay waa ogtiga saxaafadu gobolada Soomaaliland oo dhan haday noqoto Togdheer haday noqoto Oodweyne haday noqoto gobolka Muradjah khamriye fara badan baa la qabtay gaadiidkooda baa la qabtay macaasana ku dar gaadiidkooda baa la qabtay maxkamadihii aan u gudbinayo iyo xilaalintiina xilkii iyo waajibaadka ka saarnaa way ka guteen hadiya jeer waxaan uga digaynaa dadweynaha kuwii waxaan lagu soo qabtay kuwa kaleba war inay aad uga fajignaadeen war ciidanka booliska ay ka horeeyaan oo mar kasta xeelada ay mid ka sareysay la yimaadaanba inay ciidanka booliska ka horeeyaan doonaan kuwii lagu soo qabtay waxa la horgeyn doonaa hadii la ka dhigo maxkamadda iyo xilaalinta wadowle Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur Yacawl Cabdi Kaahin telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliland ee magaalada Hargeysa.